inay xukuumadda oo muddo yaro gaaban jirtay ay noqoto mashruucii labaad ee Garabis laga fuliyo runtii waa wax lagu farxo ma aha dhagax dhig waxa weeye actually waynu bilaabaynaa waa bilow waa barbilow dhisme xanaanada xooluhu ay leedahay waxaanu leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan halkan ku soo dhaweynayaa wasaaradda xanaanada xoolaha oo maanta noo dhagax dhigaysa dhisme laga dhisayo ay wasaaradda xanaanada xooluhu dhisayso oo ay maalgelinayso barwaaqo waxaanu leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan ku soo dhaweynayaa waan leeyahay soo dhawaada mashruucan barwaaqo waxa maalgeliya World Bank sidaa daraadeed adeega halkan laga fidin doono xanaanada xoolaha oo markii horena ku yimid baahiyaha ay qabaan deegaanku ayaa insha Allah halkan laga hirgelin doonaa waxaana hadalka intiisa badan idin faahfaahin doona gudoomiye xigeenka hay'adda shaqaalaha oo deegaanka iyo mashruucaba ka tirsanaa markii hore oo aan imkana ku soo dhaweynayo halkan kulli waxaan u joognaa maanta dhagax dhigga xarun xanaanada xoolaha ay ku shaqeyn doonto oo ay baahiye keentay oo halka kan maanta laga dhagax dhigayo kaasoo halkan wasiirku inoogu dhagax dhigi doono insha Allah wayna noqon doonto meel wax weyn ka tari doonta adeega caafimaadka xoolaha ee deegaanka runtii maanta farxad weyn ayay tahay inaan ka soo qayb galo munaasabaddan dhagax dhigga xarunta xanaanada xoolaha ee degmada Garabis runtii baahi weyn ayaa loo qabay runtii deegaankani waa deegaan ballaaran waa deegaan xoolo dhaqato ah inay xukuumadda oo muddo yaro gaaban jirtay ay noqoto mashruucii labaad ee Garabis laga fuliyo runtii waa wax lagu farxo waa wax qabad la taaban karo waa horumarkii loo baahnaa waan soo dhaweynayaa runtii mashruucan ka waxaan anaga si gaar noo taabanaya waa sababta animka ugu noqday inaynu hubino waxaanu bilaabayno si hadhow toole marka wixii dhamaaday wax xisaabtan wuxuu yahay waxaan jecelahay inuu injineerka dhisaya runtii uu tayada dhismahan iyo qorshuhu qaabku yahay runtii uu dhameystiro muddada uu ku dhameystirayna runtii uu qaatay inuu ku dhameystiro waxaan jecelahay inaan si gaar ugu mahad celiyo barwaaqo oo ah ilaa hadda intii muddadii aan joognay wasiir baartanaadka nala shaqeeya qoladayga ugu wanaagsan imika ilaa hadda intaan arkayno wax qabadkoodu oo maalinba maalin aynu arkayno inay wax ka fulayaan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka bilaabino oran maayo waan dhagax dhiganahay dhagax dhigu inta badan barnaamij wax loo raadinayo noqday laakiin waxaynu bilaabinaa xanaanadii xoolaha ee deegaanka Garabis oo u adeegi doonta xoolaha deegaanadan ku dhow Garabis oo dhan halkan waxa hore laga fuliyay oo imika dhamaad ku dhow dhaam weyn oo uu mashruucan barwaaqo oo aan ka tirsanaan jiray oo halkan deegaanka Garabis ka bilaabay deegaankani markaa wuxuu nasiib u helay in mashruucan oo deegaankan oo guud ahaan ah deegaanada markii aanu qiimeynta ku sameeyay qolooyin aan wada soconay oo asxaabna oo lahaa muxuu ahaa mooday deegaanada Hargeysa ku dhow inay meelaha ugu adeega badan yihiin way yaabeen markay arkeen meeshii oo aan macaal xanaanadii dadku aan shaqeyneen marka xanaanadiina mashruuc kale oo la yiraahdo damal oo dawladda la shaqeeya ayaa isna wax ka qabtay oo isna u shaqeyn doona maanta waxa farxad weyn ah in Garabis aan joogo hawshaanu qabanaynaana ay tahay hawl xanaanada xoolaha ma aha dhagax dhig waxa weeye actually waynu bilaabaynaa waa bilow waa barbilow dhisme xanaanada xooluhu ay leedahay taasi waa taa dhammaantiin waan idin salaamayaa waxaan kaloo idiin sheegayaa in haddaanu xanaanada xoolaha nahay horta Garabis oo ka tirsan Maroodi Jeex waxa weeye meelaha ugu xoolaha badan ay ka yimaadaan waana marin waa dariiq weeye dariiqa ay tahay Garabis way u baahan tahay hawshan aanu wadno waanaanu ka ballaadhinaynaa haddaanu wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga xataa waxaanu samaynaynaa cid kasta inaanu uga soo qaadno inay ka sii ballaadhato dhakhaatiirteedii qalabkeedii dawooyinkeedii waxa Hargeysa u soo dooran doontaan ma jirto halkaasa wax walba aad kaga helaysaan waanaanu ka ballaadhinaynaa intan insha Allah biidnillaahi kariim
dawladdan waa dawlad doonaysa inay wax qabato wadajir iyo waxqabad baaba la yidhahda marka waxa weeye waxqabadkii waa bilowgiisii waxaan arkayaa maasha allah dhaam weyn oo halkan dabadayda ah dhaamkaasi waa dhaam aad huge dhaam ah waxaan filayaa in balastic shiidkiina loo samayn doono in aanay biyo la'aaniba ku dhici karin marna dambe halkan aanay ku dhici doonin ama abaariba aanay ku dhici doonin insha allah biidnillaahi kariim xoolahana way ku dhaqmayaan waxa weeye looda ugu annagu xagga iyaga bariga way ka baratay looduye oo dabadheer abaartii 74kii bay ka dhammaatay marka waxa weeye meel haddaad aragtid looy joogto biyaa yaalla biyaa u dhow waa cawsiyo biyo ku nool marka biyaa u dhow